muuqaalka wuxuu ku bilaabanayaa iskuulkani oo ah mid u gaar ah ardayda ka soo jeeda qoysaska maalqabeennada ah, laakiin gudaha waxaa ku duugan sir cabsi leh. Gabadhan waxay si kama ah u aragtay qof lagu dilaayo iskuul caan ah. Markay booliiska u sheegi rabtay, nin ayaa heshiis u soo bandhigay. Haddii ay aamusto, waxay siin doonaan deeq waxbarasho oo ay ku dhigato iskuulka ugu sharaf badan Kuuriyada, taas oo ah riyo aanay Hayiina weligeed malayn karin. Iyadoo faraxsan ayay ogolaatay, balse Hayiina ma ogeyn in go'aankan uu nolosheeda gebi ahaan bedeli doono. Haddii aad halkan nala soo gaartay, like noo saar muuqaalka. Aan ku sii socono filinkeena. Dhowr bilood ka hor, Hayiina weli waxay ahayd gabar sabool ah oo iskuulka dhigata, kuna riyoonaysa nolol ka wanaagsan. Waxay necbayd nolol saboolnimo ah. Maalin kasta waa inay shaqo habeenimo qabataa si ay u hesho lacag ay ku dabarto kharashaadka nolosha, inkastoo ay tahay arday fiican oo sare u kaca. Hayiina sidoo kale xilliga fasaxyada waxay si gaar ah u baratay arday kale. Markan waxay baranaysaa gabar qani ah oo la yiraahdo Nayoon, taas oo diyaar u ah imtixaanka gelitaanka iskuul caalami ah. Markay gashay qasriga weyn ee ay ku nooshahay Nayoon, Hayiina aad bay ula yaabtay. Waalidkeeda waxaa lagu yaqaanay inay bakhayl yihiin, isla markaana jeclaanayeen muuqa jilicsanaanta. Sababta ay u kireysteen Hayiina waxay ahayd in gabadhooda kor loogu qaado darajada xisaabta, laakiin ma rabin in gabadhooda aad loo dhibo. Hayiina waxay u baahan tahay kaliya inay 1 ama 2 dhibcood u kordhiso Nayoon. Wixii kalena lacag baa lagu xalinayaa. Kadib markay waalidka la hadashay, Hayiina si degdeg ah ayay ugu carartay dukaanka habeenkii ay shaqada ku jirtay. Ma heli karto waqti ay ku nasato, taas oo keentay daal iyo tabar darro, mana haysato lacag ka badan tan ay ku bixiso kharashaadka waxbarashada. Iskuulka ayaa markan diyaariyey barnaamij dibadda wax lagu barto, balse iskuulku wax taageero ah ma bixinayo. Haddii ay doonayso inay aado, waa inay bixisaa 3,500,000 oo won. Taasi waa lacag aan yarayn oo qoyskeeda aysan awoodin. Maalintan waa casharkii ugu horreeyay ee Nayoon, laakiin gabadhu waxay ku mashquushay sawir qaadis muraayada horteeda, taas oo Hayiina ka xanaajisay. Nayoon si aan ogaal lahayn ayay Hayiina u weydiisay in boorsadeeda qurux badan tahay. Hayiina way yaabtay sababta Nayoon u iibsatay 2 boorso oo isku mid ah, laakiin markii ay ogaatay qiimahooda, Hayiina aad bay u naxday. Mid kasta wuxuu ka badan yahay 3 milyan won, taas oo Hayiina ugu filnaan lahayd inay ku bixiso kharashka barashada dibadda. Hayiina waxay ku canaanatay Nayoon inay lacag aad u badan ku bixiso waxyaabo aan faa'iido badan lahayn. Laakiin Nayoon oo ah gabar qani ah, tani waa kharash yar oo aan waxba ka dhimin. Waxayna muujisay kibir iyo quursi ay u hayso dadka saboolka ah. Waxay tiri dadka noloshooda oo dhan shaqeeya aysan awoodi karin boorso sidan oo kale ah. Maalinta xigta, Hayiina waxay timid waqti ka horeysa sidii caadiga ahayd. Intay sugaysay Nayoon, waxay isku dayday boorsada qaaliga ah iyadoo sawir ka qaaday. Hayiina ma filayn in sawirkan uu caan noqdo si dhaqso ah. Arday badan oo iskuulka ku jiray ayaa ka hadlaya asalka qoyska Hayiina, kaliya dadka taajiriinta ah ayaa awoodi kara inay iibsadaan boorso nooca xadidan ah. Markan qof walba wuu la yaabay maadaama Hayiina caadi ahaan ay ahayd gabar fudud oo aan la sheegin. Xitaa Hayiina waxay la yaabtay markii sawirka uu caan noqday. Laakiin tan iyo markaas, dadka waxay u kala qaybsameen 2 kooxood. Koox ayaa u malaysay inay tahay gabar sabool ah oo isku dayaysa inay qariso xaqiiqda. Kooxda kale waxay u malaysay inay been sheegtay. Hayiina waa inay raacdo go'aankeeda. Hayiina waxay go'aansatay inay u noolaato sidii gabar qani ah. Tan iyo markaas, maalin kasta Hayiina waxay imaan jirtay iskuulka nus saac ka hor. Waxay ka faa'iidaysatay alaabta ay leedahay inta aysan weli iskuulka imaanin si ay sawiro ugu qaadato. Hayiina waxay sawiro badan ka qaaday alaabta raaxada leh oo ay soo dhigtay baraha bulshada, laakiin asxaabteeda iskuulka ma arkin xitaa hal mar iyada oo alaabtaas xidhan. Hayiina waxay sharaxday in tan iyo yaraanteedaba ay lacag iyada u gaar ah samayn jirtay, laakiin alaabta qaaliga ah waxay ahaayeen hadiyado ka yimid waalidkeed. Asxaabteed markay maqleen, aad bay ula dhaceen. Hayiina waxay yiraahdeen waxay lacag samayn kartaa iyada oo xayeysiis ku soo dhajinaysa si ay lacag ugu hesho waxbarashada. Hayiina waxay halis gelisay nolosheeda si ay u xirato dhar qaali ah, laakiin markii ay isku dayaysay dharka iskuulka caalamiga ah, Nayoon si kedis ah ayay u soo laabatay. Hayiina si dhaqso ah ayay ugu dhuumatay sariirta hoose si aysan u arkin. Nayoon way carootay markii aysan uniformkeeda meel walba ka weysay. Telefoonka Hayiinan ayaa soo dhacay. Nayoon si xiiso leh ayay u hubisay. Markay booqatay bogga gaarka ah ee Hayiina, way la yaabtay markii Hayiina geesinimada u muujisay inay sawir ka qaado alaabteeda oo internetka soo dhajiso. Yein waxay sariirta hoosteeda ku dhuumatay iyada oo garanaysa inaysan ka bixi karin. Markaas ayay dhulka ka soo istaagtay si ay wejiga ugu soo wajahdo Nayoon. Nayoon si caro leh ayay u weydiisay sababta Hayiina ugu dhiiratay inay khiyaamayso. Waxay ku hanjabtay inay hooyadeed u sheegi doonto, taasoo Hayiina ka cabsatay. Hayiina waxay baryootay Nayoon inay sirtaan arrintan ka qariso waalidkeed. Fursaddan Nayoon waxay ka faa'iidaysatay oo rabtay in Hayiina noqoto caawiyaheeda shakhsiga ah. Tan iyo markaas, Hayiina waa inay maalin kasta qabataa shaqada guriga Nayoon, iyo mar kasta oo ay dukaamaysato Hayiin weli waa inay caawisaa. Hayiina waa inay dhowaan u diyaar garowdaa imtixaanka ugu dambeeya. Waqtigeeda wuu yaraaday, balse had iyo jeer waa inay Nayoon u adeegtaa. Hayiina waxay isku dayday inay dulqaad samayso muddo bil ah. Maanta waa maalintii imtixaanka ugu dambeeyay. Si kedis ah, Hayiina waxay ka heshay wicitaan Nayoon. Nayoon way oynaysay waxayna tiri waxay hilmaantay faylkeeda guriga. Haddii aysan haysan, waa laga saari lahaa. Nayoon waxay ku hanjabtay haddii Hayiina u keeni weydo faylka, ay hooyadeed u sheegi doonto khiyaamada Hayiina. Hayiina aad bay uga cabsatay oo si dhaqso ah ayay u carartay guriga si ay u hesho dokumentiyada. Waxay u baahnayd inay si dhaqso ah ugu noqoto iskuulka, haddii kale imtixaanka ayay kadib dhici lahayd. Hayiina waxay orod ugu dhaqaaqday iskuulka caalamiga ah sida ugu dhaqsaha badan, laakiin si kama ah ayay u maqashay Nayoon oo saaxiibkeed la hadlayso. Waxay noqotay in ciyaar ay Nayoon u samaysay kaliya si ay Hayiina uga dhibto. Nayoon si cad ayay faylka Hayiina keentay uga tuurtay qashinka. Hayiina aad bay u carootay markii lagu tijaabiyey sidaas. Waxay ka maqnaatay imtixaan muhiim ah si ay
u orado halkan. Cadaadis kala ururiyey ayaa Hyena ka dhigay inay ku dhoola cadayso oo oydo. Hyena waxay qaadatay neef dheer si ay isugu soo celiso xasiloonida. Xilligaas ayaa ardayad kale timid si ay u siiso xadhig timaha. Ardayadan ayaa la yaabtay in Hyena ay u eg tahay sida iyada. Xitaa magacyadoodu waa kuwa kaliya yara ka duwan. Markii saaxiibkeed dabarkeeda u jeesatay, Hyena si kedis ah ayay u ogaatay qoraal ku dhigan dabarkeeda. Waxa uu soo baxday in saaxiibkan iskuulka ciqaabay. Hyena si caro leh ayay qoraalka uga qaadatay. Waxay dadka weli u dhibayaan sidaas oo kale. Markaas Hyena waxay qabsatay baaldi buuxda oo biyo ah si ay xal ugu hesho dhibaatada. Maadaama ay ardayda ka baxsan tahay, Hyena ma aqoon jidka iskuulka. Si kama ah ayay u heshay Gina oo ka soo baxday qolkii jimicsiga. Hyena geesinimo ayay u weydiisay haddii ay taqaano meesha lagu qaado waraysiga gelitaanka. Gina way la yaabtay in qof sidaas ugu dhiiraday inuu la hadlo. Ma taqaan cidda aan ahay. Hyena way wareertay oo ma fahmin waxa gabadhu sheegaysay. Waxay sidoo kale muujisay kibir. Laakiin maadaama Hyena ay ku mashquulsanayd raadinta qolka waraysiga aad uma fikirin. Kadib Hyena waxay baaldi biyo u qaaday miiska xafiiska. Wajigeeda kulul ayaa ardayda cabsi geliyey. Xafiiska ayaa tusay jidka waraysiga gelitaanka. Albaabkii si tartiib ah ayuu u furmay. Hyena waxay u dhaqaaqday meesha gabadha dada yar lagu waraysanayay iyadoo baaldi biyo ah gacanta ku haysa. Waxay si kulul ugu shubtay baaldiga biyaha madaxii Nayon taasoo dadka oo dhan ka yaabisay. Sababtaas awgeed waraysiga waa la joojiyey. Hooyada Nayon si caro leh ayay iskuulka u soo gashay oo Hyena ku qaylisay. Waxay dhahday yadiga ayaa sabab u ah in gabadhayda aysan iskuulka gelin. Way ka carootay waxayna tiri in qoyska oo dhan maxkamad u qaadi doonto. Hyena markaas waxay ku laabatay iskuulka si ay macalinka uga codsato fursad. Laakiin macalinku ma awoodin inuu xaalad u sameeyo si ay u gasho imtixaanka gaarka ah. Qoyska Nayon ayaa iskuulka yimid si ay buuq u sameeyaan. Wararka sheegaya in Hyena ay isku dayayso inay tahay gabar qani ah ayaa si dhaqso ah u faafay. Qof kasta wuu ceebaynayay Hyena oo ku tilmaamay inay isu muujisay sida qof qani ah. Maalin kaliya gudahood nolosha Hyena si lama filaan ah ayay u burburtay. Inta lagu jiray fasalka, saaxiibadeed waxay samaysteen koox si ay si xun uga hadlaan taasoo Hyena ka murjisay. Waxay gaartay xadka dulqaadka. Hyena si caro leh ayay boorsadeeda iskuulka u qaadatay oo mar hore baxday. Laakiin gabar ayaa qabatay gacanteeda oo ka codsatay inay fasalka oo dhan raali geliso. Hyena way carootay oo iyada oo ka indho tiraysa hadalka xun way baxday. Waxa ugu muhiimsan hadda waa in la wajaho cawaaqibta ay keentay. Hyena way baxday si ay ula kulanto madaxweynaha iskuulka caalamiga ah. Waxay rabtay inuu ka falceliyo dhacdadii Nayon. Haddii kale qoyska Nayon waxay Hyena maxkamad u qaadi lahaayeen. Laakiin madaxweynuhu kama raacin taladan. Inkastoo Hyena baryootay, haddana madaxweynaha wajigiisa kama muujin wax dareen ah oo wuxuu ku amray inay ka tagto. Hyena waxay si murugo leh u tagtay musqusha oo oyday. Ma aysan filayn in qof kale uu halkaas joogo. Xafiiska ay la kulantay subaxdii ayaa sidoo kale fasax ka qaadanayay isagoo halkan sigaarka ku cabaya. Wuxuu la yaabay markii uu maqlay dhawaaq yaab leh. Markii madaxeeda hoos u dhigatay oo ooyeysay si qarsoodi ah ayuu banaanka ugu dhuuntay. Laakiin markii horteeda soo istaagtay Hyena way fadhiday. Hyena way niyad jabtay markii ay si kedis ah u ogaatay in ninkaasi yahay qof xun iyadoo cad in musqusha haweenka ay tahay. Maxaa ninkaasi halkan u joogaa? Wuxuu sharaxay inuu halkan ku dhuuntay si uu sigaar u cabo. Musqushana waxaa laga sheekeeyay in sixir ku jiro. Sidaas darteed qofna ma uusan diiran inuu soo galo. Markii uu degay wuxuu ogaaday in Hyena ay tahay gabadhii subaxii. Hadda ma jirin qof iskuulka ka tirsan oo aan aqoon Hyena. Laakiin Hyena ma aysan rabin inay kaftanto. Markii mugdigu dhaco, Hyena si ula kac ah ayay derbiga uga booday si ay iskuulka u gasho oo waxay aragtay xafiiska. Hyena waxay ka codsatay inuu tuso meesha madaxweynuhu caadi ahaan gaarigiisa dhigto. Waxay u baahnayd inay raacdo si ay uga codsato in Nayon la aqbalo. Hyena waxay fadhiday oo muddo dheer sugaysay iyada oo aan madaxweynaha arkin. Maadaama ay daashay, way huruday. Markii ay soo toostay, saacadu waxay ahayd 2 habeenimo. Ma jirin qof kale oo iskuulka banaankiisa ku harsan. Hyena way niyad jabtay iyadoo ka baxaysa markii ay si kedis ah u maqashay dhawaaq xoog leh. Waxay madaxa rogtay iyadoo baqaysa waxayna aragtay jir gabadh arday ah oo cusub oo dhulka dhacday. Taasi waxay ahayd saaxiibtii Hyena ee musqusha la kulantay. Hyena cod dheer ayay ugu qaylisay caawinaad. Isla markiiba booliisku yimaadeen oo goobta xireen. Hyena oo maskaxdeedu deganayn ayaa booliisku ilaalinayeen. Waxay gariiraysay iyadoo leh waxaan arkay hoos ka saqafka. Hyena ma aysan filayn in dhacdadani gebi ahaanba nolosheeda bedeli doonto. Wararka sheegaya in hal arday iskuulka ka tirsan isdilay ayaa gaaray madaxweynaha. Waxay si qabow u amartay shaqaalaha inay wararka xiraan. Iskuulka caalamiga ah ma doonayn in sumcadiisa wasakhowdo. Hyena waxay habeenkii oo dhan ku jirtay saldhigga booliiska. Markii ay guriga ku laabatay, shaadhkeeda weli waxaa ku haray raad ka yimid habeenkii hore. Wajigeeda wuxuu ka daalay hurdo la'aan. Ka hor intaysan guriga gelin, waxay aragtay hooyada Nayon. Hyena si niyad jabsan ayay u weydiisay, maxaad halkan u joogtaa? Aabahayga miyaad u timid maxkamad? Laakiin habdhaqanka hooyada ayaa Hyena ka yaabiyey. Hooyada Nayon si farxad leh ayay u weydiisay Hyena sidee ku guulaysatay inaad madaxweynaha ka dhaadhiciso inuu go'aan bedelo. Hadda Nayon waxaa aqbalay iskuul caalami ah. Sidaas darteed waxay ka laabatay dacwadii ay geysatay. Hyena way la yaabtay oo ma fahmin waxa ay ka hadlayso. Laakiin hadda waxay ka xorowday dacwadda dhibka badan. Hyena iyadoo wajigeedu wareersan yahay, waxay ku laabatay gurigeeda. Si kedis ah, fariin qoraal ah ayaa ka timid madaxweynaha. Hyena way naxday oo madaxweynaha dib u wacday si ay u xaqiijiso. Madaxweynuhu wuxuu rabay inay sir ka dhigto dhacdadii habeenkii hore ee iskuulka. Beddelkeeda wuxuu ogolaan doonaa inay iyada iyo Nayon iskuulka galaan. Hyena ma aamini karto waxa ay maqashay. Tani waa fursad lagu bedelo nolosheeda. Dhanka kale, gabadhii isku dayday istilka habeenkii hore ayaa lagu daaweeyey isbitaalka. Si kastaba ha ahaatee, xaaladeeda ayaa ka sii dartay. Awooddeeda inay soo kabato waxay ku dhowdahay inay dhammaato. Saaxiibteed ugu fiican ayaa murugoonaysa iyadoo eegaysa qofka dhaawacmay sariirta isbitaalka.
hooyada dhibanaha ayaa timid si ay u weydiiso. Waxay ku faraxday markii uu yimid si uu gabadheeda u booqdo. Saaxiibkan ayaa la yaabay in qof kale halkan joogo. Waxay cadayd in dhibanuhu aanu saaxiibo ku lahayn iskuulka marka laga reebo saaxiibkan. Waxa kale oo ay la kulmeen dhibaato ka timid madaxda iskuulka. Waxay rabeen inay ogaadaan qofkii cabashada keenay, markaas ayay ku tuureen barkada. Si uu u ilaaliyo dhibanaha, saaxiibkan wuxuu ogolaaday in laga saaro halkan. Iskuulka caalamiga ah, ardayda waxaa ka jira kala sarreynta. Kan ugu sarreeya waa walaasha weyn Gina oo arday walba ka cabsado inay ka hor imaadaan. Kadib waa koox saaxiibada dhow ee Gina oo dhammaantood yihiin carruurta dadka awooda leh. Xitaa wiilka madaxweynaha ayaa ku jiray. Kaliya ardayda ma aha, xitaa macallimiintu waxba kama qaban karaan. Gina xilliga fasalka waxay si cad ula doodi jirtay macalinka haddii aanay ku qanacsanayn. Dad badan ayaa la eriyey sababo la xiriira habdhaqanka Gina oo qurux badan. Dhanka kale, Hyena waxaa iskuulka lagu dhibayay. Hadda mar kasta oo ardaydu arkaan iyada oo fasalka soo galaysa, saaxiibadeedu waxay dhibaato u geystaan Hyena. Marar badan waxay ula dhaqmaan sida qashin. Maanta waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee Hyena iskuulkan. Dhammaan waxay aad ula yaabeen markii ay arkeen in iskuulka xiga ee ay tagayso uu yahay iskuul caalami ah, iskuul caan ku ah dadka taajiriinta ah. Subaxdii xigtay, qof ayaa yimid si uu Hyena ugu keeno dhar iskuul cusub. Si uu ula jaanqaado dharka qaaliga ah, Hyena waxay lacag badan ku bixisay si ay u iibsato kaba cusub. Waxay si farxad leh ugu lugaysay xarunta ganacsiga. Hyena ma aysan ogeyn in qof si qarsoodi ah u daba socdo. Si kadis ah, qofkaas ajnabiga ah ayaa soo dhawaaday oo ku dhacay Hyena. Hyena way niyad jabtay markii kabaha cusub ee ay iibsatay wasakhoobeen, laakiin waxa walwalka ka sii dhaliyay waa warqad lagu dhex dhigay kabaha. Sida ajnabigaasi uga ogaaday heshiiska ay la gashay madaxweynaha, waxa ay si dhaqso ah uga carartay si ay qofkaas u raadiso, laakiin ma aysan helin cidna. Xilligaas, Hyena waxay xusuusatay inay boorsada kabaha ka tagtay musqusha. Way wareertay oo meel walba ka raadinaysay, laakiin ma aysan helin. Si kadis ah, walaasha weyn Gina ayaa halkaas joogtay. Gina waxay xirnayd isla kabahaas, taasoo Hyena ku dhalisay shakiga in ay tahay qofka xaday alaabta. Hyena waxay u malaysay in Gina ay tahay tuugada. Gina way la yaabtay in qof ku dhiirado inuu taabto. Waxay ku dhahday, ma taqaan cidda aan ahay. Waxaa fiican inaad ka tagto oo indhahayga ka hor leexato. Hyena way carootay markii sidan loogu ixtiraam dareeyay. Waxay si degdeg ah u dhaqaaqday oo timaha Gina qabatay si ay cashar ugu barato. Labadooduba si xoogan ayay ugu dagaalameen musqusha. Hyena way dadaashay inay kabaha dib u hesho, laakiin ma aysan ogeyn inay ka shakisay qof khaldan. Kabahaas dhab ahaan Gina ayaa iibsatay. Walaasha weyn waxay gurigeeda ku noqotay iyadoo wejigeedu dhaawacmay. Gina si caro leh ayay ku dhaaratay inay Hyena ka dhigto mid nolol adag ku noolaato. Maanta waa maalintii ugu horeysay ee Hyena iskuulka cusub tagto. Tani waa adduun gebi ahaan oo cusub Hyena. Iskuulku wuxuu leeyahay fasallo casri ah, laga bilaabo jimicsiga ilaa barkada dabaasha. Dhammaan waxyaabahani waxay u gaar yihiin fasalka sare. Hyena waxay tagtay qolka macalinka si ay u hesho kaarkeedii iskuulka. Halkaas ayay si kedis ah ugu kulantay wiilkii ay shalay la kulantay. Wuxuu aad uga yaabay markii uu arkay iyada oo xiran dharka iskuulka, laakiin Hyena ma aysan rabin inay wax xiriir ah la yeelato ninkaasi. Xilligaas, gacmo ayaa Hyena dib u jiiday. Labadooduba way la yaabeen markii ay arkeen Duwun halkan. Duwun wuxuu ahaa wiilka madaxweynaha. Hyena ma aysan fahmin sababta uu faragelinayo, xitaa isma aysan aqoon. Duwun wuxuu yidhi, hadda waa inaan isbaranaa, wuxuuna rabay inay ka baxdo xafiiska. Sidaas darteed, Hyena waxay go'aansatay inay la tagto. Duwun ayaa ku jiiday geeska bannaanka iskuulka. Muuqaalkan jacaylka ah wuxuu Hyena ka dhigay mid eeb iyo xishood dareemaysa. Wuxuu isu soo bandhigay, magacaygu waa Duwun. Haddii aad dhibaato kala kulanto, fadlan i raadi. Hyena si xiiso leh ayay boggiisa gaarka ah u baartay. Waxaa u soo baxday in Duwun horay gabadh saaxiib ah u lahaa. Maxay ugu soo dhawaaday iyada? Hyena ma aysan fikirin wax badan oo si toos ah ayay u tagtay armaajadeeda. Waxay la yaabtay markii qof walba indhaha ugu fiiqay. Ugu dambeyntii, Hyena waxay heshay armaajadeeda gaarka ah. Markii ay furtay, waxay ka naxday markii ay aragtay kabaha cusub iyo qoraalka ku soo dhawow ciqaabta. Ardayda ku hareeraysan ayaa bilaabay inay ku qoslaan. Hyena si dhaqso ah ayay armaajadeeda u xirtay oo fasalka u gashay. Isla markiiba koox wiilal ah ayaa horteeda istaagay. Waxay si caro leh u weydiiyeen, iyaa tahay adiga oo ku dhiiraday inaad la dagaalanto madaxda iskuulka? Kooxdu way isu soo urureen. Hyena way baqday oo si dhaqso ah ayay uga carartay fasalka. Waxaana daba socdeen qaar ka mid ah ardayda ka hooseysa, iyagoo soo daba raacaya Hyena. Way niyad jabtay oo waxay weydiisay madaxweynaha, tani ma tahay sababta aad rabtay inaan iskuulka u soo galo? Madaxweynaha wuu wareersanaa oo ma uusan fahmin waxa ay sheegtay. Hyena waxay u sharaxday in saaxiibteeda cusub lagu dhibayo, laakiin madaxweynaha wuxuu yidhi, tani mas'uuliyadayda ma aha. Heshiiska ay saxiixeen wuxuu kaliya sheegay in Hyena ay hesho deeq waxbarasho oo bilaash ah. Ma laha waajib uu ku caawiyo arrimo yaryar sida tan camal. Haddii ay rabto, waxay ku noqon kartaa iskuulkeedii hore, laakiin gelitaanka iskuulkan waa riyada dad badan. Sidaas darteed, Hyena waxay go'aansatay inay halkan sii joogto si ay uga fogaato indhaha iyo dhegaha Gina. Waxay go'aansatay inay ka boodo daaqada si ay fasalka u gasho, laakiin isla markiiba markii ay daaqada ka soo baxday, Gina ayaa horteeda istaagtay oo ku qabatay. Madaxda iskuulka oo awood badan leh ayaa weydiisay sida ay u aragtay soo dhaweynta ay u sameeyeen, laakiin Hyena si caro leh ayay ku jawaabtay iyadoo leh, yaa tahay adiga? Laakiin daqiiqad gudaheed, Hyena ma aysan hadli karin. Ardayda iskuulka oo dhan waa kuwa ka hooseeya Gina. Gina ayaa qoorta ka qabatay waxayna ku digtay iyadoo dhehaysa, haddii aad i taabatid, noloshaada way dhammaan doontaa. Hyena si caro leh ayay wejigeeda ugu garaacday, taasoo dadka ka yaabisay. Fursadana waa ay ka faa'iidaysatay, si dhaqso ah ayayna uga carartay. Ardayda ka hooseysa Gina waxay si degdeg ah uga daba carareen Hyena. Nasiib wanaag, qof ayaa meel ku dhuumiyey. Waxayna la yaabtay markii ay aragtay saaxiibtaan horteeda taagan. Sion ayaa kabihii hore soo saartay si ay Hyena ugu amaahato. Waxay la yaabtay haddii ay horay u kulmeen
kareen iyo haddii kale, laakiin saaxiibtani waxay tiri magaca Hyena hadda waa tan ugu caansan iskuulka. Hyena way niyad jabtay markii ay ku dhacday indhaha walaasha weyn. Nolosheeda cusub halkan ayay ku burburtay. Hyena waxay u mahadcelisay saaxiibteeda cusub oo si dhaqso ah ayay u tagtay dibadda. Ardayda ka hooseysa Gina si joogto ah ayay u raadinayeen. Hyena si welwelsan ayay Dawoon fariin ugu qortay si ay caawimaad u weydiiso, laakiin ardayda ayaa ka horeysay. Waxay ku hareeraysanayeen Hyena oo ma aysan ka baxsan karin. Mana jirin fursad ay ku baxsato. Hyena waxay halis gelisay nolosheeda oo waxay ka booday dabaqa, taasoo keentay inay qof walba ka baqaan. Nasiib wanaag, Dawoon ayaa waqtigii saxda ahaa yimid si uu u qabto. Kooxdii oo dhan way yaabeen markii Dawoon u yimid inuu caawiyo gabadhan. Iskuulkan Dawoon wuxuu ka yahay qof awood badan, mararka qaar la mid ah Gina, sidaas darteed ardayda ma aysan ku dhiiranin inay Hyena raacaan mar dambe. Labadooduba waxay tageen saqafka sare si ay u wada hadlaan. Hyena way u mahadcelisay markii uu ka caawiyay inay ka baxdo dhibka ay ardayda ku hayeen. Dawoon si naxariis leh ayuu dhaawaceeda u xiray, taasoo Hyena soo xusuusisay marka ay yarayd. Marna ma aysan filayn inay nasiib u hesho inay guursato nin boqor ah, laakiin hadda waxay ka fikiraysay inay noqoto wax intaas ka weyn. Laakiin farxaddan si degdeg ah ayaa looga jaray baaldi biyo qabow ah. Dawoon si adag ayuu u weydiiyey isagoo leh yaa ka soo tuuray dhibanaha saqafka sare. Hyena way niyad jabtay markii ay ogaatay inuu kaliya isticmaalayay. Tan iyo bilowgii, Dawoon ayaa u soo dhawaaday markii uu arkay sawirkeeda. Hyena waxay fiirisay jijinta gacanta ugu xirnayd kaasoo uu lahaa dhibanaha. Hyena si qabow ayay u weydiisay iyadoo ku leh haddii aan runta sheegto, sidee ayaad i caawin lahayd? Maalintii xigtay, arday badan ayaa la yaabay markii ay arkeen Hyena oo Dawoon la saaran isla gaariga. Labadooduba weli gacmaha ayay is haysteen oo waa ay wada socdeen. Ardaydu waxay isweydiiyeen goorta ay labadan bilaabeen xiriirka noocan ah. Tani waxay Gina ka dhigtay mid aad u caroota oo aan raaxo ku jirin. Hyena mar kale waxay noqotay mowduuc dooda ardayda iskuulka dhexdiisa. Nacaybkii si tartiib ah ayuu isu bedelay xushmad, xitaa saaxiibada Dawoon u dhow kama aysan rumaysan. Ardayda gabdhaha fasalka ayaa sheegay in dhowaan uu jiri doono xaflad gaar ah, waana meel keliya loogu talagalay ardayda gabdhaha. Maadaama Hyena ay xiriir la leedahay boqorka iskuulka, dabcan waxay heli doontaa fursad ay si gaar ah uga qayb gasho. Markay aragtay habdhaqanka kibirka leh ee saaxiibadeeda, Hyena waxay ogolaatay inay ka qayb gasho xafladda. Waxyaabaha ugu horreeya ee ay u baahan tahay waa inay diyaarsato dhar qurux badan. Qofka keliya ee Hyena ka codsan karto waa Nayoon. Nayoon sidoo kale aad bay ugu faraxday xafladdan. Sidaas darteed waxay ogolaatay inay Hyena imaahiso dhar. Maanta waxay ahayd maalintii xafladda. Hyena waxay u labisatay si qurux badan oo si kalsooni leh ayay u gashay xafladda. Jawigii raaxada lahaa ayaa Hyena aad uga yaabiyey. Si kedis ah, gabar yar ayaa dhulka ku riixday Hyena. Hyena waa inay si taxadar leh u dhaqaaqdo si aan cabitaanka loogu shubin dharkeeda cad. Waxay ka dhigteen Hyena kaftan oo way baxeen. Xilligaas qof kale ayaa soo muuqday. Waxay sheegtay inay saaxiib dhow la tahay Dawoon. Hyena kalsooni ayay siisay oo gacanta ayay u fidisay si ay u caawiso. Markaas ayaa Gina oo xiran dhar dhalaalaya timid. Isla markii Gina ay timid, gabadhii kale ayaa gacanta ka sii daysay Hyena. Hyena way la yaabtay markii cabitaanka dharkeeda qaaliga ah uu u daatay. Gina waxay soo martay Hyena. Walaasha weyn si kulul ayay u amartay qof inuu keeno cabitaan. Iyadoo aan ka leexan, Gina si kulul ayay cabitaankii ugu shubtay Hyena. Dadka hareeraha joogay ayaa bilaabay inay ka sheekaystaan. Hyena si degan ayay u weydiisay iyadoo ku leh ma waalan tahay. Gina waxay ku jawaabtay inaysan sidaas samayn karin. Ma u malaynaysaa in xiriirka Dawoon aad la leedahay uu kaa badbaadin doono aniga? Hyena way carootay oo waxay rabtay inay la dagaasho Gina, laakiin shaqaalihii ayaa joojiyey. Markaas ayay Hyena ogaatay in dadkaas ay yihiin dad Gina ay leedahay. Xafladdan dhab ahaan waxaa soo abaabushay Gina. Hyena si xanaaq leh ayaa looga saaray goobta iyada oo aan waxba samayn karin. Maalintii xigtay, Dawoon wuxuu u imaaday Gina si uu u weydiiyo sababta ay Hyena ugu samaysay sidaas. Laakiin Gina ma aysan rabin inay ka jawaabto su'aashaas. Dawoon si caro leh ayuu ugu amray inay joojiso ciyaartan. Gina si kaftan ah ayay ku tiri, Hyena waxaad u fiirsatay si sax ah, laakiin adinku labadiinuba ma noqon kartaan lamaane. Fadlan ka tag gabadhan. Fiidiyowgii Hyena oo cabitaan lagu shubay ayaa si weyn ugu faafay internetka. Wiilka maamulaha ayaa sidoo kale arkay. Markaas ayuu arkay Hyena oo ordaysa wuu raacay oo wuxuu arkay iyada oo la hadlayso nin kale. Wiilkii ayaa si degdeg u yimid si uu ninka u cabsi geliyo, isagoo u maleeyay in Hyena la khiyaanayo. Laakiin runta waxay ahayd, Hyena waxay isku dayaysay inay alaab iibsato si ay deynta u bixiso. Hyena waa inay bixisaa kharashka dharka cabitaanka lagu shubay. Wiilkii naxariista lahaa ayaa geeyay gurigeeda. Habeenkii Hyena waxay isku dayday inay hesho siyaabo ay lacag ku kasbato si ay deynta u bixiso. Laakiin kafeteeriyada waxay aqbaleen oo keliya ardayda jaamacadda. Habka keliya ee lacag lagu heli karo waa deeqda iskuulka. Laakiin muddada deeqda ma bilaabanayso ilaa dhammaadka sanadka. Hyena waxay la halgamaysay carqaladaha saaxiibadeeda. Si kastaba ha ahaatee, ma aysan ka baqin Gina. Xitaa waxay diyaar u ahayd inay la dagaasho gabadhan. Walaasha weyn ee iskuulka ayaa si kedis ah u soo bandhigtay dalab. Haddii Hyena iskuulka ka baxdo, Gina waxay bixin doontaa kharashka dharka. Walaasha weyn waxay siisay 1 toddobaad si ay uga fikirto. Hyena waxay la yaabtay dalabyadan cajiibka leh. Maalin kasta Gina waxay isku tusisaa si ay u xasuusiso. Hyena way niyad jabtay oo ma aysan garanayn waxa ay samayso. Xilligaas Dawoon ayaa marayay meel u dhow. Wuxuu soo jeediyey Hyena una sheegay inuu u socdo iskuulka. Hyena waxay u malaysay inuu yimid si uu u caawiyo. Laakiin midaas waa qalad. Waxa Dawoon uu ka walwalayay waa qofka dhabta ah ee falka geystay. Wuxuu ka daalay dulqaadka Hyena, sidaas darteed ayuu u soo raacay oo wuu helay. Hyena waxay weydiisay haddii uu siin karo lacag yar. Tani Dawoon way ugu xanaajisay si weyn. Hyena way niyad jabtay markii laga diiday. Waxay codsatay in baska laga dejiyo isla markiiba. Hyena waxay sheegtay inay heshiis la gashay madaxweynaha, sidaas darteed ma aysan shaacin
karin sirta, laakiin iyadoo xushmad u hayso caawimada uu hore u siiyey waxay sheegtay in qofka falka geystay uu ahaa gabar, laakiin mugdiga darteed ma aysan arkin wejiga gabadhaas. Qofka keliya ee iskuulka si wanaagsan u dhaqmay ayaa ahaa Shiina. Saaxiibtan cusub badanaa waxay Hayiina ku casuuntaa inay qadada wada cunaan. Shiina si xiiso leh ayay u weydiisay sababta ay lacagta ugu baahan tahay. Hayiina si aan jeclayn ayay u sheegtay inay u baahan tahay 8 milyan oo lacagta Chinese-ka ah si ay u bixiso kharashka dharka. Shiina waxay tiri waxaan aqaan qof lacag amaah ah ku siin kara. Shiina ayaa Hayiina u kaxaysay si ay ula kulanto ninkii, inkastoo aamusnaantiisu ay tahay mid muuqata, laakiin qofna iskuulka ma aysan ku dhiiran inuu taabto, sababta oo ah ninkaas buuran aabihiisa waa qof taajir ah. Hayiina waxay rabtay inay lacag samayso, sidaas darteed waxay keligeed u tagtay ninka buuran. Waxay ku aragtay iyada isagoo dhoola cadayn xun wata. Wuxuu bixin karaa mushaarka haddii Hayiina ay raacdo codsigiisa. Ninkaas buuran wuxuu rabay inuu sawiro ka qaado Hayiina iyadoo labisan oona ciyaarayso. Hayiina way niyad jabtay, laakiin si ay u kasbato lacagta deynta waxay qasab ku noqotay inay raacdo codsiga. Sharafta nafteeda waa ay hilmaantay. Hayiina ma aysan filayn in ninka buuran uu codsi xun soo jeedin doono. Wuxuu ballan qaaday inuu bixiyo 8 milyan haddii ay xirato dhar aad u yaryar. Hayiina way ka carootay codsigan, laakiin lacagtaas ayaa ka caawinaysa inay bixiso dhammaan deenteeda. Sidaas darteed Hayiina waxay u dulqaadatay ceebta si ay lacag u hesho. Xilligan hooyada Jiina ayaa iskuulka timid. Jiina aad ayay u xanaaqday markii ay aragtay wejigeeda, iyadoo leh maxay halkan u timid. Jiina way carootay markii ay aragtay Hayiina oo u soo muuqata sida been abuur ah. Ujeedadeedu sidoo kale waa hantida madaxweynaha. Xilligaas Hayiina ayaa timid si ay Jiina uga kaxayso dhibaatada. Way u soo dhaqaaqday si ay salaan ugu mashquuliso, si dhaqsi ah ayayna u jiiday Jiina. Tani waa markii ugu horeysay ee Hayiina ay aragtay iyada oo ooyeysa, laakiin Jiina weli waxay muujisay kibirkeeda oo ma aysan u baahnayn caawimaad. Jiina waxay xitaa Hayiina ku tiri erayo xanuun badan. Waxay ku fikirtay qofka ay dhawaan badbaadisay. Markaas Hayiina lacagtii ayay wejiga Jiina ku tuurtay. Tani waa lacagta ay kasbatay si ay deenteeda u bixiso. Hayiina waxay shaacisay inay iskuulka sii joogi doonto ilaa ay ka qalin jabiso. Hayiina si qabow ayay u tiri hadda kadib ha iigu samayn dhibaato, qofna ima cabsiin karo. Maalintii xigtay Hayiina waxay ku noqotay iskuulka. Dhammaan saaxiibadeed waxay ku ammaaneen maadaama aysan waxyeello soo gaarin. Hayiina waxay noqotay qofka ugu horeeya ee ka badbaada cadaadiska Jiina. Markay u malaysay in wax walba si fiican u socdaan, Duwun ayaa yimid. Wuxuu yiri waxaan qaban doonaa wax walba. Hayiina way weydiisay. Tan waxay ka dhigtay inay dareento wareer, balse ma aysan ka baqin Jiina mar dambe. Sidaas darteed looma baahnayn inay iska dhigaan inay yihiin lamaane. Duwun wuxuu aabihiisa ugu hanjabay isagoo muujinaya inuu yahay qof aad u cabsi badan. Maxaa dhacaya haddii uu ogaado inay khiyaantay? Hayiina way carootay oo way ka tagtay, inkastoo Duwun uu hanjabay. Laakiin iyadoo fogaanba fariin aan la garanayn ayaa u soo dhacday. Qof ayaa si qarsoodi ah u duubay Hayiina iyada oo dharka aad ugu yar xiran si ay lacag u kasbato. Tani waxay keentay in Hayiina daciifto oo ay si aan tamar lahayn ugu socoto hoolka. Markii Shiina timid si ay u weydiiso aragtida xiriirka dhow ee labada qof ayaa Jiina ka dhigtay mid fajac ah, iyadoo leh maxay Shiina ugu socotaa Hayiina. Habeenkii Hayiina waxay si lama filaan ah u aragtay in qoraalka qofka u soo diray uu la mid yahay midka Shiina. Ma Shiina bilowgii isku dayaysay inay ka faa'iidaysato Hayiina. Taariikhda Shiina ayaa si tartiib ah u soo baxday. Qoyska Shiina wuu burburay, waxayna ardayda u fiiriyeen si hoose ah. Tani waxay Shiina ka dhigtay mid xoogaa isbedelaysa oo tartiib daciif u ah. Waxay si xanaaq leh u garaacday saaxiibteed fasalka oo ku dhiiratay inay ugafto qoyskeeda. Markaas Jiina ayaa timid si ay u joojiso. Jiina waxay siisay garaacid u muuqato mid digniin ah. Saaxiibo ahaan waa in ay isku heer ahaadaan. Shiina waxay bartay Jiina sida dadka la isaga dhiciyo. Tan iyo markaas nacaybka labada dhinac ayaa bilaabmay. Meel kasta oo Shiina tagto, Jiina ayaa cadaadis saarta si ay uga argoosato Shiina. Hayiina ayay u soo dhawaatay. Waxay rabtay inay ka faa'iidaysato Hayiina si ay Jiina cashar ugu barato. Hayiina si degdeg ah ayay ugu oroday hoolka farshaxanka si ay u hesho fiidiyowgii qarsoodiga ahaa, laakiin Shiina ayaa meel kale ku qarisay. Markaas Shiina ayaa soo gashay. Hayiina si caro leh ayay u weydiisay sababta ay uga faa'iidaysatay. Shiina way qososhay si xooggan, waxayna ku tiri annagu waa isleenahay. Waxay sharaxday inay si shil ah u soo gashay iskuulka maalintaas. Shiina ayaa qososhay oo tiri waxba kama jiraan waxyaabahaas. Waxay ogaatay in dilaaga dhabta ah uu yahay Jiina. Duwun sidoo kale wuxuu garwaaqsaday nacaybka ka dhexeeya labada gabdhood. Habeenkaas Jiina waxay tagtay saqafka sare si ay u aragto dhibanaha. Jiina waxay ogaatay in dhibanaha uu ahaa qofkii cabashada soo gudbiyey. Intaas kuma eka, dhibanaha sidoo kale wuxuu ogaa in aabaha Jiina uu xiriir la leeyahay macallimad iskuulka wax ka dhigta. Tani waxay Jiina ka dhigtay mid si weyn ugu wareersan. Hayiina weli ma aysan aamini karin in Jiina ay tahay dilaaga. Waxaa hubaal ah in qof uu jebinayo shabakada Jiina, laakiin taas waxba kama qaban fiidiyowga qarsoon. Hayiina waxay Shiina weydiisay inay fiidiyowga ka bixiso. Shiina ayaa dhoola cadaysay oo tiri markaad sidaas samayso, Jiina ayaa saqafka sare ka soo muuqan doonta. Waxay tirtiri doontaa fiidiyowga qarsoon. Jiina waxay ka shalaysay in laga aqbalay iskuulka. Markii gobolka uu dhacay, Jiina si kedis ah ayay u aragtay Hayiina oo keligeed ooyeysa. Jiina way la yaabtay oo waxay joojisay gaarigeeda si ay wax uga weydiiso. Hayiina way niyad jabtay marka ay la kulantay dhibanaha. Jiina waxay tiri iyadu waa ka duwan tahay dhibanaha. Ka hor inta aysan bixin, Jiina sidoo kale waxay ka digtay inay taxadar ka samayso Shiina. Xilligan Duwun ayaa soo wacay. Hayiina waxay ogolaatay inay shaaciso qofka dilay haddii uu ka caawiyo arrin kale. Isla markiiba labaduba si dhaqso ah ayay ugu dhaqaaqeen iskuulka. Hayiina si degdeg ah ayay u raadinaysay qalab si qarsoodi ah wax u duubi kara. Waxaa jiray sidoo kale leesino badan oo sharci darro ah kuwaasoo ku jiray gudaha iskuulka. Isla waqtigaas xafiiska soo dhaweynta ayaa si istaba joog ah u garaacay ninka buuran. Wuxuu raacay amarada Hayiina wuxuuna ku
qasbay ninka inuu shaaciyo wax walba. Habeenkaas Hyena way fadhiisatay oo waxay daawatay fiidiyowga qarsoon. Aad ayay ula yaabtay markii ay aragtay dhibanaha oo la joogay naagta timaha laalaada leh. Waxay u muuqatay in Sheena sidoo kale ay ka warqabtay arrintan. Hyena waxay ka soo saartay silsiladii uu dhibanuhu siiyey ka hor inta uusan miyir beelin. Labadan shay si cad ayay isku xirnaanayeen. Maalintii xigtay Hyena waxay iskuulka timid iyadoo maskaxda ka mashquulsan. Sheena waxay ku sugaysay dibadda. Waxay ka warqabtay Hyena iyadoo qof u dirtay inuu garaaco ninka buuran. Sheena si xun ayay u dhoola cadaysay oo ay ku hanjabtay inay fiidiyowgeeda online-ka gelin doonto. Hyena way cabsatay oo waxay sheegtay inay rabto inay u sharaxdo. Haddii ay shaaciso dilaaga waxaa laga saari lahaa iskuulka. Si ay u hubiso, Hyena waxay ogaatay in wax walba ay Sheena hagaysay. Sheena ayaa qiratay inay dhibanaha u adeegsatay si ay Gina ula dagaasho. Waxay Hyena kula talisay inaysan isku dayin inay xaqiiqada baarto. Iyadoo ku tiri kaliya samee sida aan ku sheegayo, wax walba way hagaagi doonaan. Xaqiiqdu waxay tahay soo dhaweeyaha ayaa si lama filaan u maqlay. Wuxuu ballan qaaday inuu ka caawin doono Hyena xalinta dhibkan. Hyena waxay dareentay raaxo markii ay maqashay ereyadaas. Maanta waa dhalashada saaxiibteeda iyadoo qof walba ku faraxsan yahay lamaanahan. Hyena waxay dareentay inaysan halkan ka tirsanayn. Waxay socod iskula baxeen duwuun. Hyena waxay isweydiisay sababta dilaagu dhibanaha uu riixay. Waxaa hubaal ah in nacayb weyn uu jiro, iyadoo garatay inay muddo dheer ka maqnayd. Hyena waxay ku noqotay xafladda si ay ula hadasho Gina. Si kedis ah ayay u aragtay silsiladii saaxiibteed timaha laalaada lahayd oo ay xirnayd. Waxay ahayd mid la mid ah tii dhibanaha u siiyey. Hyena way la yaabtay oo way weydiisay iyadoo tiri qiimaheedu waa imisa. Gina way qososhay oo waxay ku tiri waa shay xadidan. Xitaa haddii aadan haysanin lacag waxba ma iibsan kartid. Gina kadib markii ay cabtay cabitaan badan waxay bilowday inay xakamayn weydo nafteeda. Waxay bilowday inay dhibto duwuun iyadoo ku dhahaysay maxaad iiga tagtay aniga. Ma garanaysaa waxa ay samaysay? Duwuun wuu xumaaday markii qofka kale uu aflagaadeeyay saaxiibtiisa. Duwuun wuu u qayliyey si xoogan isagoo weydiiyey haddii ay tahay qofkii dhibanaha saqafka ka soo riixay. Gina way qososhay oo waxay tiri dhibanaha ayaa qof walba khiyaameeyey bilowgii. Kadib hadalkaas Gina waxay faraha ugu tilmaantay naagta timaha laalaada leh. Iyadu waxay xiriir sharci darro ah la lahayd dhibanaha. Haweenkii xafladda ayaa si lama filaan ah u qasmay. Duwuun wuu carooday oo wuxuu garaacay naagta timaha laalaada leh. Qofka ugu dhibka badan hadda waa la socodkiisa. Naagta timaha laalaada leh Gina waxay saaxiibteeda ku jiiday gees si ay wax ugu wada hadlaan. Laakiin saaxiibteeda horay ayay uga warhaysay. Laakiin jacaylku waa indhoole. Saaxiibteed weli waxay isku dayday inay qariso. Gina way garatay inay khalad samaysay. Xilligan Hyena waxay fuushay gaariga si ay codsi raaxo u hesho. Gina waxaa markii ugu horeysay lagu casuumay guriga Hyena waxay lahayd wax muhiim ah oo ay sheegi rabto. Hyena horay ayay u ogaatay cidda dhabta ah ee dembiga gashay. Qof walba wuxuu rumaysnaa in Gina ay tahay dilaaga. Laakiin qofka dembiga geystay wuxuu ahaa saaxiibteed. Sababo la xiriira maseer labadooduba way istagaaleen. Ugu dambeyntii kaliya hal daqiiqo oo xanaaq ah saaxiibtii ayaa si lama filaan ah dhibanaha uga riixday saqafka. Qofkii Hyena aragtay markaas wuxuu sidoo kale ahaa gabadhaas. Maalintii xigtay Hyena si kedis ah ayay u heshay fariin qoraal ah oo ka timid Sion. Waxay ballan la samaysay saqda dhexe ee habeenka iyadoo leh aan ku kulano saqafka sare. Haddii aadan imaanin fiidiyowgaaga waa la faafin doonaa. Hyena waxay isku dayday inay u sharaxdo in ay heshay qofkii dhab ahaantii dilay. Laakiin waxay u muuqatay in sidoo kale ay qofkaas ka warqabtay marka Sion doonaysay inay fiidiyowga online-ka geliso. Hoos mugdi ah ayaa ka muuqday gadaasheeda. Xilligaas Hyena waxay sidoo kale tagtay iskuulka. Waxay isku dayday inay hesho waddo ay kor ugu fuusho si ay ula kulanto Sion. Markii si kedis ah ay u maqashay qaylo xoogan. Hyena way yaabtay markii ay aragtay Sion oo horteeda ku miyir beeshay. Filimkii halkan ayuu ku dhammaaday. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.